wasiirka wasaaradda hawlaha guud Cali Mareexaan oo ay wehelinayaan maareeyaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku yimid wadada isku xidha Wajaale iyo Kalabaydh oo ay daadadku waxyeeleeyeen isla markaana waqtigan ay hawlaha guud gacanta ku hayaan dhismaha dib loogu hagaajinayo wadadaasi waxa wasiirka halkaasi ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Tog Wajaale Cabdi Saleebaan Kooshin maayirka caasimadda gobolka Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri ما مشكلة وينو يابله لامي وينو بتقبا لكن قربه لامي هو هذا دفاع هي دينا عن وضعت كبير وحنا وصلها بيها ودول مري لامي لبا ورشان الدول نام كانوا قبلنا وميدي وحويان هذا إن قربه dadku qaaday la soo celiyo waa kuwa iskarogooyinkii caafimaadkii wixii wadiyaan hawshaas way naga gabagabeysaa dhowr qashay soo socota hadda aragto tan kalena waxa la sugayaa marka biyo yaraadaan oo inta hawsha lama geli karo waa wadadanu waxa weeyaan wadooyinkii dhismay intii dawladda oo hogaamiya madaxweyne Silaanya ay xukunka haysay ee xukuumadda kulmiye halka waynu mari jirnay iyadoo wada booraba 14 wado kala jaad la mari jiray marka wadada laamiga ee adag ee quruxda badan laba inoo dhisantay sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay maamulada degmooyinka Gabiley iyo Wajaale iyo mas'uuliyiinta hay'adda wadooyinka maalintii ay dadku ku geeriyoodeen dila ay salaadii subax imaadeen wasiirkii maareeyaha iyagoo u socda eegista dhibaatada wadada soo gaadhay isla maalintiiba shaqadeedana way bilaabeen yaan loo qaadan waxa weeye inay dawladdu mooganeyd dhibta meesha taala cidii ugu horeysay maalintii salaadii subaxba timi waxay ahayd wasiirka iyo maareeyaha aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee wax qabadkiisii iyo hawshiisii wasiir ilaa heer degmo shaqadiisii iyo nidaamkiisii oo ku talagalay lagu shaqaynayo haddaan nahay dadweynaha reer Tog Wajaale aad baan u soo dhaweynaynaa jecelahay iyaguna inay ka qayb qaataan wixii hawlaha jirta ama kaabadan ha noqoto ama kaabada Tog Wajaale magaalada dhexdeeda ha noqoto Mukhtaar Nuux Ibraahim on Cable TV